gudida gobolada Sool iyo Sanaag iyagoo ku hadlaya codka shacabka dhulbaantay guud ahaan waxay uga digayaan shacab weynaha SSC gaar ahaan gobolada Sool iyo Sanaag shirqoolada dib u soo cusboonaaday ee kooxda Cali Khaliif Galeyr ka wado deegaanada SSC sida la socotaan waxa baryahan dhaqdhaqaaq ka waday deegaanada Sool iyo Sanaag kooxda Galeyr oo adeegsanaya dad u dhashay deegaanada kuwaasoo durbadiiba bilaabay in la iska hor keeno dadkii wada dhashay ee ku noolaa deegaano dhowr ah sida gudaha magaalada Ceerigaabo waxa kooxda Cali Khaliif ku sifowday inay shacabka iska hor keento tan iyo markii Khaatumo la dhisay si ay ugu fulaan danahooda gaarka ah ay uga hayaan maamulka Hargeysa kooxda Galeyr ee Egas Khaatumo haddana u xubsiibatay Somaliland ayaa ku baaqay shir ka dhici doona horaanta bisha July magaalada Burco oo ay gogashiisa dhigtay Somaliland shirkaas oo salka ku haya in beesha caalamka la tuso sawira in waqooyi Israacay si loo helo ictiraafkii ay Somaliland u daashay iyadoo la isticmaalayo waxa midoobay Khaatumo iyo Somaliland sidaas daraadeed gudiga Sool iyo Sanaag wuxuu u soo jeedinayaa shacabka gobolada SSC meel ay joogaanba in la qaadaco shirka Burco aan laga qayb galin sidoo kalena gudida Sool iyo Sanaag waxay uga baaqayaan shacab weynaha gobolada Sool iyo Sanaag iyo waliba Cayn inay ilaashadaan nabadooda iyo midnimadooda kooxdaasi ku sifowday cadowga gudahana inay ka saaraan gobolada SSC gaar ahaan gobolada Sool iyo Sanaag ee wurwur laga soo abaabulay dibna loogu masaafuriyo meeshii laga soo diray ama guryahooda lagu xiro ugu dambeyntii gudida Sool iyo Sanaag waxay hambalyo halkan uga dirayaan dhammaan shacab weynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan munaasabada maalinta xurriyadda 26 Juun iyo 1 Luulyo oo ah Israaciil labada gobol waqooyi iyo koonfur.